kawaran adigoo tagsiila ah oo isleh saacadii oo ay ka dhamaatay intaanana kugu filan intaa shaqaysan lahayd waa shaqaysatay bal hooyo adigoo xaafadaadii u socdo oo markaasi rabo inaad iska seexato haddii ay gabar yar oo qurux badan oo qalanja ah wadada intay ku istaagto ay gacanta ku haatiso ay weliba ku tiraahdo ii joog oo aad u joogsato weliba adigoo isle gabadhan waxa ay ka daahaysaa eelaboorka ama train stationka kawaran haddii ay gabadha sida ay ku tilmaamayso ay ku geyso meel baagga codda aan aqoonin waa meelaha markaasi loo nashqadeeyey in markaasi dadka ay isugu imaadaan oo doogaga ama dalxiiska loogu talagalay weliba leh meelaha ciyaaraha markaasi ay ku ciyaaraan caruurta marka baagi ayay geysay ninkan marka waa nin tagsiila ah oo dhulkan si wanaagsan u yaqaano baagga markii uu gabadhi geeyey sidaan idin sheegay gabadha waxa ay wadataa boorso aad u weyn oo markaasi culus weliba markii ay gelinaysay buudka dambe ee gaariga waxa uu ka codsaday in uu markaasi maadaama uu nin raga yahay caawiyo balse waa ay diiday oo waxa ay tiri aniga isku filan oo mahadsan tahay baagi ayayna markaasi meeshaasi gashatay markii la geeyey meeshii ay u socotay ninkii waa uu yaabay ma weydiin karo oo meeshan maxaa waaye ma dhihi karo qofkan qof uu aqoon u leeyahay ma ahan asigii waa tagsiile oo wax uu markaasi weydiin karo ma jirto run ahaantii sheekadani waa sheeko markaasi aan wax badan ka faa'iideyno asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal taariikhdu markii ay ahayd 27ka May 2023 qiso dhacday ayaan rabaa in aan idinla wadaago qisadani waxa ay ka dhacday dalka South Korea waa gabar markaasi yar balse yaraanteedu aysan ahayn in ay aad u yar tahay just ahayd ahaan da'da 23 sano gabadhani ayaa waxa ay ahayd mid ka duwan dadka kale sababtoo ah aqliyan gabadhani aqligeeda ma xumo balse dabeecadeeda ayaa waxa ay ahayd dabeecadaha aamusan xitaa haddii aad la hadlayso adigoo hortaagan lagama yaabo in ay ku jawaabto ardaydii markaasi ay iskuulka la dhiganaysay ayaa waxa ay markaasi taasi ku noqotay mid ay la fajaxaan macallimiintuna waa ay kasii darnaayeenoo gabadhani imtixaanka kaalmaha 10aad kama degto su-aal haddii la weydiiyo waa ay uga jawaabaysaa macallimiinta balse hadal kale oo qof ay la hadlayso haba yaraatee ma jirto aqligeedii markii laga qaaday tijaabo caafimaadna 100% qof aqligeeda uu xun yahay ma aha amba dhibaato aqliyan ee haysato magaceeda waxaa la yiraahdaa Jang Jiang markii ay markaasi dhameysay dugsigeedii sare waxa ay markaasi ku soo aroortay wiiljoog oo ma ahan sida kale gabar markaasi wareega jecel haddii ay wareeg aadaysana waxa ay aadaa kaliya baag markaasi xaafadeeda u dhow ilaa 5 kilomitir 6 kilomitir u jiro lug ayayna ku tagi jirtay waa ayna ka soo laaban jirtay maalin maalmaha ka mid ah markii ay dhowr sano kadib markii ay dhamaysay dugsigeeda sare ay guriga iska joogto ayaa awowgeed waxa uu u sheegay oo soo koriyay in ay shaqo raadsato waxa uu yiri awow aniga waa duqoobay markaan ka bacdi wax walbaana dhici karo marka waxaan rabaa gabadheedii inaan noqoto gabar isku filan oo shaqaysato marka waa in aan shaqo raadisaa shaqadii ayay markaasi bilowday in ay raadiso marka gabadhani maadaama ay tahay gabadh aqligeeduna uu fiican yahay balse dabeecadda dadweynaha aysan haynin oo aan ku fiicneen dhankaasi shaqadii markii ay dalabkeedii dalbatay oo loogu yeeray in interview laga qaado ama wareysi laga qaado dadkii markaasi su'aalaha weydiinayay dhanka shaqada ah wax jawaab ma aysan siinin ayagana si fudud ayay waxa u dhahay waa ku soo bixi doona shaqada ay dalbanaysa ayaa waxa ay ahayd marka macallimad guriga markaasi ku barto arday Englishka luqadda Englishka
maadaama ay ku wanaagsaneed luqadda ingiliishka. Marka waxaa dhacday in ay maalmo iyo bilooyinba aan la soo wicin oo wax koola aysan helin Jiang. taasina waxa ay ku beertay uqdad aada u weyn. uqdadaasi ayay markaasi la nooleed dhowr bilood iyo dhowr sano. kadibna waxa ay mar waliba geli jirtay online-ka oo markaasi waxbarashada online-ka lagu bixiyo iyo waxaasi ayay mar walba fiirin jirtay. markii dambe waxay aragtay gabar Heena la dhaho oo markaasi shaqada ayada ay rabtay oo kala hayso adereeskii ayay qoratay. xilliga markaasi taariikhda ay noqon doonto 2023 May 27 waa xilliga ay markaasi Jiang ay aadi doonto xaafadda Heena. marka maalin maalmaha kamid ayay albaabka waxa ay soo garaacday guriga Heenana waa macalimad oo markaasi waxa ay isku diyaarinaysay ardaydii ugu horeysay ay waxbarayso in ay markaasi maanta u imaan doonaan dhowr arday oo kala duwan oo markaasi ay bari doonto luqadda ingiliishka. balse ardaygii ugu soo horeeyay oo u imaado ayaa waxa uu noqday kii markaasi naftiisa dhibaateyn lahaa oo ah Jiang ayaa albaabkii guriga soo gashay. niyad ahaan marka Heena waxa ay isweydiinaysaa war qoftani waa qof weyn sidee wax u jiraan. balse markii ay soo gashay gabadh wadato dharka iskuulka hoosna ka wadata midi ayaa Jiang waxa ay la soo baxday midideedii 20 xabo ayayna waxa ay kaga dhufatay qoorta oo kaliya. xilliga ay marka imaanayso waa galab casar liiq ah ilaa habeenkii oo dhan laga gaarayay 3 habeenimo waxa ay joogtay guriga Heena. waana marka ay markaasi boorsada qolaabta ay la soo degi doonto. waliba waxaa la sheegay in ay soo xiratay dhar ka mid ah dharka Heena. waxa ayna markaasi go'aan ku gaartay in ay ku soo tuurto webiga ama riifaha oo baaga uu ku yaalay. baagii ayayna markaasi tagsigii u soo raacday. balse tagsiilahani arintaasi waxa ay ku abuurtay uqdad sidaan idiin sheegaba. uqdadaasi ayaana waxa ay noqotay qofkan waxa ay jiidayso oo culaabta ah oo sida fudud macnaha intay tagsiga uga degatay markii ay gashay webigana isla markii soo laabatay maxay noqon karaan. waxa uu go'aan ku gaaray in uu booliska arinteeda la wadaago. booliskii markii ay soo kala carareen waxa meeshii ugu horeysay oo imaadeen waxa ay noqotay baaga oo riifaha ah. markaasi baagii markii ay yimideen ay ku fasaxeen waxay arkeen markaasi jir qof dumar ah oo daadsan meelo fara badan. jirkii ay isku soo aruuriyeen waxa ayna markaasi bilaabeen in ay raadiyaan qofka dhibaatadan geystay. balse booliska dhibaatadan qofka geystay in ay soo qabtaan kaliya waxa ay ku qaadatay 5 saac. 5 saac kadib waxa ay markaasi soo qabteen Jiang markii la wareystay ma aysan diidin in ay wax dishay balse waxa ay sheegtay cunug yar oo ayada ay dhashay in ay dishay sababtuna ay tahay in aysan rabin in ay hooyo noqoto. balse booliska waxa ay hayaan waa wax ay u jeedaan in qofkani uu yahay qof weyn. marka cadaadis iyo wareysi kala duwan oo la weydiiyey ama lala yeeshay waxa ay markaasi ugu dambeyn qaratay in ay dhibaatadani ayada geysatay. sababta markii la weydiiyeyna waxa ay tiri aniga waxaan ahay qof wax bartay dabeecadeydana waxa waa in aan dadka la hadlin balse waxaan go'aan ku gaaray in aan shaqeysto. shaqada kaliya oo aan qabo kari lahaana waxay ahayd in aan luqadda ingiliishka aan helo arday aan baro si aan uga qaato mushaar. taasina waa ay suurtageli weysay. marka maadaama aniga wixii aan rabay aan waayay qof waliba oo shaqadaasi qabato ayaan rabay in aan beegsado oo aan dilo. qofka ugu horeeyay oo aan dilana waxa ay noqotay gabadhani. nacaab iyo dagaal iyo xumaato kalena ani iyo ayada
nagama aysan dhexin. Marka sheekadan waxaan ka baran karnaa in qof anaga aanan garanaynin anagoo keli joogno gurigeena in aanan albaabka ka furin, sababtoo ah qofkan qof aan naqaano ma ahan, waxa uu yahayna ma ogin. Marka saas darteed waa in aanan markaasi qof aanan aqoonin ka furin guryaheena. Intaan ku kulmi doono sheekadan mid lamid ah, waa Axmed Ismaan Xasan Axmed Deeqsi oo ku leh sidaas iyo nabadgelyo.